waxaan ugu maaragtay kola soo galay sidaas awgeed inuu iga go-aan jeclahay kola soo galay marka waa inuu iga go-aan umaleynaya haddana waa noogu wadaya barty twoga nooga wadayaa barty twoga xataa waxaan maraynay meel dhexaan maraynay marka freedom of dhinac badeecooyinka waa ka hadalna umaleynaya daayacadda waajibaadka waxaa waaye barty 20 chapter 20 waaye oo partiga labaad ah partiga labaad party 2 second part chapter 20 oh daayacadda waajibaadka dadka afrikaanka ah ee Soomaaliyeed ka saarnaa dayacadoodii si diblomaasiyadeed markii loo macneyn maaga loo dhihi maagan waxay noqonaysaa chapterka 20aad ma aragtay United Nation Multicultural Treaties-ka ma aragtay ka bilaado charterka qaramada midoobay iyo qaynuunka waa khilaafsan tahay marka la dhaho waxyaabo khilaafsanaa jiro marka la dhaho xataa xaq inuu u lahayn inuu wadankiisa ka dhex baxo soo baxayso oo nin dambiile ah laakiin kor uga baxa daayacadda waajibaadka anaga xataa waa daayacuna waajibaadka qaramada midoobay axdiyadii qaarkood aan saxiixnay ku jiray oo ah tusaale ahaan inaan gacanta ku dhigno dambiilo way dhahno kor haddii looga sii baxo for example 21 chapterka 21aad ayaa wuxuu ka hadlaa sharciga badaha law of the sea war xasuusta taas waa sharciga waa maaragtay chapterka 21aad 21aad waxay u qoran tahay alif kale alif waa 22 x1 camal waa 22 chapterka 22aad oo google garan kartaa xataa oo maaragtay inkastoo moog markay meelaha qaarkood la joogo dad badan oo qaylinaya arko dhahayo maaragtay waxa kamaysan yahay camal oo meelahaas dhaqdhaqaaqa badan oo Canada waa meesha dhan oo laga xukumo isgaarsiinta dunyada calaa ay xal marka taas naftirkeeda sharciga sidoo kale oo maaragtay heshiisyada waxaa waaye sharciga heshiisyada waa kan 23aad waay waxaa 25aad ayadana isgaarsiinta kawar isgaarsiinta sababtoo dhulka ayagoo joogaan isgaarsiintooda kor u qaadnamo shirkadeyna iyo waxaas tageenoo maaragtay asxaabteena socotay ka qisheen filankii qishaa maaragtay ilaa iyo safari iyo habarta iyo waxa ay sameeyeen ana kiiskii hormuudka kadib le ayaga ay istaarmeen kiiskii barkaadan ku jeedaa marka intaas waa muhiim waa ku diri karnaa haddana maaragtay hal xabo kale waa ku diri karnaa oo sida hub aruurinta sababtoo hub aan maaragtay waxaa jiray aawa hubkii Soomaalida ay ka qabteen markabkii aawe markabkaas markii laga baxo haddana meel badan joornaalo badan iyo derbiye badan iyo maaragtay meelo badan waxay ku qorqoreen in maaragtay dib u dhaqan celin iyo waxaas loo sameeyo dadka Soomaalida oo dego Soomaali Kenya ama Soomaalida ka midka dhulka Soomaaliyeed ee ka midka ah Kenya dadka degan in maaragtay ku sameeyeen hub aruurin oo qofka maaragtay hubkiisa asaga inta hadduu soo dhiibo la shaqaaleynayo oo inta laga qaado council laga dhigayo ama maaragtay rag councilada la shaqeeya laga dhigayo oo maaragtay
qarar mashaariicda la geli ay ka qayb ka qaataan iyo waxsaas camal ah ay fara duwantiin idinkaa u dhaweeyo maaragtay intaas waa intaas hadhow waxaan rabaa inaan noo galo waxaan dareemayaa wax badan facebookaan rabaa inaan si toos usoo galo xagga sportiga dhibaatooyin badan oo maaragtay soomaalida caadi dhalinyaro iyo dad waaweynba carabkooda markaan wax u bartay dhinaca sportiga marka dhinaca sportigaan rabaa hadhow inaan si fiican xaaja haddaan sidii futacre loo furin sabaad waxay dhihi jireen si futacre haddaan loo furin xaajadaas lama gelin camal ma xaaja haddaan sidii futacre loo furin ma laga bogsoonin miyaa ma la bogsiinin miyaa waxsaas camal soomaalida dhahdaa maaragtay aabbayaal iyo awoyaal iyo ay dhihi jireen marka si fiican oo rasmi ah ayaan hadhow rabaa inaan u taabto sababto sportigu waa meesha keliya ee horumar marka la higsanayo ay suurtagal tahay haddii sida naqshada aan hadhow idin daadin doono aada ka faa'iidaysataan maaragtay si fiican loo dhegeysto waxay u badanaysaa ana olympic waay waxaan ka hadlayo olympiga wax badan ku daba taxmayaan oo maaragtay transportationka iyo waxyaabahaas ay soo wadagalaan transportation management habartay calaa ay xaal hadhow waan si fiican transportation markaan dhaho odayga see waa camal yaa laysdhigayaa fardaha waxay kamid yihiin transportationkay kamid yihiin tartanka baaskiilada transportationkay kamid yihiin tartanka baawar waditaanka transportationkay kamid yihiin roadiska saas soo baxayo arrinta haddaa aan sheegaya calaamadihii soo baxayo cidda ku shaqada lehedaa calaamadihina keenayso wadankaaba samaysanayo geela tartanka geela transportationku kamid yahay orodka marathonka transportationku kamid yahay sababto road wadooyin waay wax lagu ordaayo marka wax badan oo maaragtay oo faa'iidooyin badan uu leeyahay sportiga oo albaabada u furaayo horumarka haddaan dahabka iyo qalinka iyo luulka maxaa la dhahay three dimensional haddii aan ku daro hadda oo maaragtay for example fine artiga inuu yahaan jeclahay fashionka inuu ku jira umalana fashion artiga haddii aan ku daro dada waxay leeyihiin dahab iyo maxaa isaga dana sporti dan baa isaga jirto oo haddii sportiga garoomo waaweyn la sameeyo oo maaragtay dadka ciyaaraha soo aadayo dhalinyarada gobolada dhaadheer ka imaana ama wadamada kale ka imaana waalidiintooda iyo xaasaskooda iyo maaragtay gabdhihii la dhashay iyo wixii la socda ganacsiga sameynaya inta ay meesha joogaan jaayagii wiilasha soo ma bixi karaan laakiin wiilasha waxay rabaan markay laabtaan inay hadiyado geeyaan maho ayagii waxaa laga yaabaa coachkooda inuu celinayo ehelkooda marka lacagtooda usoo qaado oo shopping usoo sameeyo oo hadhow markay laabanayaan wadankooda kula laabtaan waxaa ku jira marka dahab gold waxay gadanayaan dahabkay gataan silfarka qalinkay gataan waxay gataan maaragta wax badan maraayadahay gataan okeelayaasha iyo waxyaabahaas oo dhalooyinka ah waxyaabaha maaragtay hadba sida naqshadaha oo dhalooyinka loo sameeyo ku xiran tahay cala ay xaal waxaa waaye hadhowaan baabkaas gelayaa haddii sport marka la dhahana sidiisaba xataa ka hadalkiisa dadka hal wado saarayo ma saarmo sport hal wado banooni kama bilaawdo portiere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gool ma noqoto ya waa 1 5 6 9 marka laga hadlayana saasoo kale u baahan yahay dhinacyo badan in loo taabto hadhow wixii maaragtay educator ah mutacalimiinta iyo dadka oo maaragtay hiwaayadooda ay tahay sportiga waa isfahmi doonaa dadka kalow la yaabinayaa laagna ma ogoli waa dhaliili kartaa laakiin laag ay saarin dhaliil hadalkayga dhaliil wax ka sheeg aniga wax iga sheeg ka shaqeey sidaad noo dibridi lahayd ana ilaa hor socosha iga tahay bal horaha u socdaan iga tahay ana ma yihi soomaaliyana ma joogi kanadaan jooga nin kanadiyaanaan ahay oo maaragtay mana qalbigayga xataa kuma jirto inta saas ay tahay inaan aniga xagga aan maaragtay tilaabo u qaado laakiin
waa jeclaha wanaagiina inaa wanaagsanaataan oo jilalka naga dambeeya iyo asxaabihiina iyo ilmahay dhalaan farcooda ah iyo kulli inay wada wanaagsadaan. laakiin aniga 5,000 oo sano intaan ka guuro ma rabo. 5,000 oo sano 5,000 years inaan ka guuro farcooda waa imaansadaan meeshan. marka islaam hadhow Facebook soo galaya. bye bye. intaan waxaa waaye telefoon la isoo diraa leedhaa wareer xaafadda waa lagu daba maray camal. saasaan kusoo maaragtay gale. waxaa jirto maaragtay waxyaabaha keena rejectionka programmada hadda tii aan ka hadlayay oo haddaay inaan ka hadlaa umaleynaya oo aan Djibouti xoogaa aan ka tataabanaya dhahay maaragtay faynka la saaray dadka baawartooda u xirnays magaciisiga waxyaabaha la reject garaynaya ka mid tahay. sababta loo reject garaynaya waxaa laga dhigay wax public ah laga dhigay oo idaacadihii waa laga soo daayay soo ma. okay dhowr nooc ee u reject garaysmaysaa. fiiri marka heshiiska lasoo saxiixayo chapterkan oo transportationka waa isla aragnaa umaleynaya wuxuu ka koobmaa horta waxaa waaye ilaa 500 pageka 503 uu ka bilaabanaya ilaa iyo wuxuu gaarayaa maaragtay dhowr uu gaarayaa oo sababtoo transportationkii uu soo kala qaybsan. marka qodobo ahaana wuu gaaraya ilaa 40 qodob uu gaarayaa. 40 qodob sida oo maaragtay nidaamka ah ma la ogolaanayo hal nin oo cafre hal nin oo ciise la israacinaya oo maaragtay konsulaaro ah halkaas tagayo agreementkii soo saxiixay ma soconayso. waxaa la rabaa gudbiirsiyaa la rabaa, waxaa la rabaa isaaq, waxaa la rabaa oromo, waxaa la rabaa kuwii kale maxaa la lahay oo gulcadka ahaayeen harariyiinti way degaan Djibouti way degan qoysasaa ka degan. annaga Soomaalida asaas dhayna dadka kalena waa ka daran yihiin. Yementi Fransiiska lama rabo Fransiiska oo maaragtay oo dhashiina ah ilmihiina ah degaan waaye. koox in la isku raaco talyaaniga wuxuu dhahaa Chimino el vento raccoglie la tempesta. ninkii abuuro dabayl macnaha maskax oo fudud ma fahmi karto warkaas. dabayl buufa daarto oo ninka abuuro oo duugo waxa uu sugayo waa duufaan ama wax duufaan oo wax dhahayo si xirka isku talashay. Chimino el vento raccoglie la tempesta. marka weliga allaha daacadnimada ka bixin wadada streetka adduunyada aan steerin u noqono. waxa kaliya oo aan ku noqon karnana waa daacadnimo. meel kastoo aan joogno daacad aan ahaano. maxaan daacad u ahaanaynaa? waxaan daacad u ahaanaynaa wanaagga adduunyada sida ku qurux badnaan lahayd iyo sida cadaaladda ay ahaan lahayd. cadaaladda daa wax yar ama xaqdaro ama ama qof wax u dhibsado aad samaysid waxay u badan tahay oo aanan sharcina ahayn xaqna ahayn waxay u badan tahay waxaas inay kugu soo laabtaan. waa un turaanturo ka hor imaan doonto ama kuliyad qabsasho gadaal lagaa qabsado oo aad maaragtay marka wax walba street loo ahaadaya. sababtoo halkaas waxaa waaye Janis ma jiro. ana haddaan fadhiyo Janis ma jiro oo wada hadal. laakiin waxaa Janis noqonaa wada hadal noqonaa rejection. reject reason for reject waa baraka uu soo baxaa sida hadda oo kale. السلام وصحيح فرايت اللي قال اوكي وحتى ودمودا كربشن aad ugu hormaray liistiga waxa galay dhinaca kale wixii wax ku soconaa mashaariicda lagu helayay ma aragtay shaqooyinka iyo wixii abuurmi lahaa iyo horumarka aan rajaynaysana wax talaabo hor u qaadayaba ma leh. sababtoo waxa awoodaa waxaanan jirin. marka waa idin salaamaya wixii aan hadda aqrinay oo ah ma aragtay
jabtaradaas oo sharciyada heshiisyada adduunyada isla gaareen ah. qaarkood annaga horaan u saxiixnay soomaali markaan nahay siiba lixdameeyadii badidooda aan saxiixnay intii qaramada midoobay nala kontumeeyadii aan qaarkood saxiixnay ya kontumeeyadii aan qaarkood saxiixnay oo qaramada midoobay intii nala joogtaaba ma aqaan odayaal la kaxeyn jiray oo maarata soo saxiixi jireen kuwa aan weli anaga aanan saxiixin meeshay ku qoran yihiin kuwa aan weli saxiixin waa noo meedaari doonaa. waxaa la rabaa baarlamaanka waxaan meeshaan kasoo gudbina iyo kana maahee sharciyadan war ma ogolaana saan oo adduunyada ay leedahay heshiiska ma soo saxiixin ahaa aawe hala magacaabo guddi committeeganow haa idinka socda waxaa aadaysaan magaciisi markaas shirkaas looga fadhiyo ama maaragtay laga saxiixayo meeshaasaa aadaysaan waa idin la soo geli doonaa shakada waa shakooyin waa hadhowaan maaragtay si jiljilcin doonaa waa islaamaya bye bye noola kulan wacan.